wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa maanta adeegyo caafimaad oo bilaash u sameeyay qaar ka tirsan darbijiifka magaalada Hargeysa oo ku dayacan gidaarada suuqyada sidoo kale waxay u qaybiyeen dhar waxaana ay geeyeen raiislayaasha halkaasi timaha kaga soo xiray isla markaana si wanaagsan u daryeelayay caafimaadkooda wareenkaas waxa ka hadashay Filsan Xuseen Khaliif oo ah agaasimaha waaxda arrimaha bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka warantay adeegyadan tabarucaadka bilaashka u fidiyeen qaar ka tirsan darbijiifka magaalada waxaan maanta halkan ka wadnay hawl caawimo ah oo aanu volunteer aanu ku qabanaynay anagoo ka soconaa wasaaradii shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan u fulinaynay halkan waxa jooga caruur aan cid lahayn iyo ciirsi toona waa caruur aan haysan baahiyihii asaasiga ah caafimaad aan haysan aan waxbarasho haysan waa caruur duurka ku nool sida xayawaanka u nool marka waxaynu u baahanahay inaynu wada caawino anagu wasaarad ahaan annaga qaranka uga masuul ah waxaan u sameynay xarunta waxa ku jira 120 caruura xaruntu way buuxdaa in ka badan caruurtii ma qaadi karto kuwii halkan joogay ayaan u nimidnay qaar waxa jira aan ogolaynba in xarunta lagu xareeyo oo duurka u bartay marka waxaan rabnaa iyaga laftooda inaan dooxi laftiisii ku daweyno meeshan degan waa kharaabado waxa jiifaan dhulkii meesha kaynta abay ku dhexnool yihiin dhex jiifaan waxaan u wadnaa maanta dhar aanu doonayno inaanu siino waxaan u wadnaa dhaqaatiir iyagu daweynaya waxaan u wadnaa qolo raiislayaal ah oo doonayno inay timaha ka xiiraan waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta ah ganacsatada hay'adaha cid walba oo doonaysa inay caruurtan caawiyaan inay soo caawiyaan waxa jira dad ku gaboobay dooxa sida ugu noolaayeen odayaal waaweyn ba meesha marayay hablaha jira darbijiifa sidoo kale iyaguna halkaas waxa ka hadlay xubno kamid ah dhaqaatiirtii hawlgalka caafimaad ee bilaashka u fidiyay darbijiifka oo ka waramay bukaankii ay daweeyeen wasaaradda arrimaha shaqada iyo bulshada ayaa naga codsatay in caruurtan u darbijiifa oo aan kuwii boardinka la geliyay ahayn aan ka caawino waxyaabaha xanuunada kale inaan ka soo daaweyno caruurtu dhibaatooyin fara badan oo darbijiifka bay qabaan qaar infections baa haye fara badan qaar abuse baa lagu sameeyo oo la farxumeeyay arrin aad u ballaaran baanu ka soo qayb galnay oo wasaaradda ay naga codsadeen inaanu hawl tabarucaada aanu caruurta darbijiifka aanu u sameeyno ugu dambeyntiina qaar ka tirsan darbijiifka ku dayacan darbiyada magaalada Hargeysa ayaa iyaguna dareenkooda cabiray anuna wax barto xaafadayda la joogan doonay aan waxaan codsanayaa xarunta dibadda saxan xarunta la geeyo oo waxna loo qabto aan xabagtaana uu iska joojinaan dadaalka ka sii wada anigoo afayeenkii darbijiifka ah wasaaradda arrimaha qoyska waan u mahad celinayaa ilaa 20 sano waa darbijiif waan wasaaradda waxaan ku xigtay in caawso shaqana nasiis Cabdulqaadir Cuday Home Cable TV Hargeysa.